saake waa barigii ayay ciidamada milatariga dawladda ku meel gaarka iyo ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ay weeraro qorsheysan ku qaadeen fariisimo ay shabaabka ku lahaayeen waqooyiga magaalada Muqdisho. dagaalkan ayaa waxaa ka qayb qaadanayay dabaabaadka ay leeyihiin ciidamada AMISOM kuwaas oo duqeynayay meeshii ay rasaas ka soo dhacdaba iyadoo la arkayay kaarayaasha ay adeegsanayeen ciidamada AMISOM oo wadooyin ka samaysanayay guryo ku yaala aagaga ay dagaaladu ka soconayeen. sidoo kale ciidamada ayaa dhufaysyo ka samaysanayay goobihii ay saake kala wareegeen xarakada al-shabaab iyagoo meelaha qaarna jabinayay gidaarada si ay halkaasi uga toogtaan xoogaga ka soo horjeeda ee al-shabaab. goobaha qaar ayaa waxa ay ciidamadu kala kulmayeen iska caabin oo u badnayd rasaas ka soo dhaceysay qoryaha fudud oo ay shabaabku soo ridayeen. rasaastaas oo dhaawacyo u geysatay qaar ka mid ah ciidamada dawladda ku meel gaarka iyo weliba kuwa AMISOM. goobaha ay ciidamada dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM maanta si buuxda ula wareegeen ayaa waxaa ka mid ah dhismihii wasaaradii hore arrimaha gudaha oo ay shabaabku ka samaysteen qalcado dhulka hoostiisa ah iyo kanaalo qofka ku dhex lugeynayo aan dusha sare laga arki karin. Ibrahim Yarow oo ka mid ah saraakiisha dawladda ku meel gaarka oo hogaaminayay dagaalka ayaa aynu kula kulannay jidda hore ee dagaalka ayaa telefishinka Universal uga warbixiyay dagaalka maanta dhacay. saakay waxa ilaahay nagu guuleysiyay qoladii qawaarijiinta ahayd oo ummadda Soomaaliyeed dhibaateynaysay in aan saakay ka guuleysano oo dagaal xoog leh aan la galno kadibna ilaahay guushii uu nasiiyay isagana mahadaas iska leh. dagaalka saakay qaaday annaga qaadnay dawladda Soomaaliyeed qaaday ciidamadeeda xoogga dalka Soomaaliyeed iyo AMISOM oo isgarabsanaya. wallahi annaga qasaaraha iyaga laba qof anaga dhaawacantay wax kale oo qasaarana gaar ma laha. wallahi dad waa ka dhinteen dadna waa ka dhaawacmeen kulay wax hadda dhimasho waa soo aragnay meedkoodii laakiin wax qiimo u leeyahay male dhimashadooda. intii aanu ku sugneen aaga dagaalka ayaa waxa ay indhaheenu qabanayeen qolfoofta laba qofood oo dadka deegaanku ay inoo sheegeen in ay yihiin nin oday ah iyo haweenayda ah oo ay halkaasi ku dileen shabaabka bilooyinkii la soo dhaafay. deegaanada maanta lagu dagaalamaya ayaa ahaa kuwo cidlo ah hase yeeshee waxaa jiray dad maanta soo gaaray deegaanada dagaalka si ay u soo eegaan guryahooda oo ku yaalay goobaha ay maanta la wareegeen ciidamada dawladda ku meel gaarka iyo weliba kuwa AMISOM. goobahaasi oo ay ka mid yihiin isgoyska Manabolyo, Sinai iyo nawaaxiga afarta jardiino iyo wasaaradii arrimaha gudaha. عقدر سي dagaalka ayaa waxa uu saameeyay arrinimada saaka isagoo ku bilowday qaybta magaalada Muqdisho. ciidamada dawladda ku meel gaarka iyo kuwa AMISOM isgarabsanaya ayaa waxay qaybsadeen qaybo ka mid ah fariisimo ay hore u lahaayeen xarakada al-shabaab. Ibrahim Maxamed Ibrahim JK Universal TV عاصمة الصومالية.